kulanti wacan wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya oo aan kaga soo tabinayno barteena YouTube-ka channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay adduunyada oo idil inaguna waxaan diyaar kula nahay mar kasta hada weeyaane inaan ku soo gudbino wararkaas hadba markay dhacayaan iyo meesha ay ka dhacayaan qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idiin soo gudbin doono waxaa kamid ah daawadayaal qarax ka dhacay magaalada Buulaberde ee gobolka Hiiraan iyo airportkii oo la burburiyay warar kale idiin soo gudbin doono waxaa kamid ah hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo xilka laga qaaday qaramada midoobay oo war ka soo saartay kulan uu maartay qaab muuqaal ku dhex maray oo aaladda internetka ah madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada madaxdooda waxaa kale idiin soo gudbin doona Galmudug oo wali ay ka socdaan booqashooyinkii la xiriiray tabashada dadka deegaan gobollo badan oo kamid ah waa deegaano badan oo kamid ah maamulkaasi oo wali lagu guda jiro wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo taliye Odowa oo ka hadlay ciidamo gadood shalay sameeyay oo ka dhacay magaalada Muqdisho kusoo dhawaada wararkaas iyaga oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa waayidii la soo dhaafay aad uga nasatay dhacdooyin amni darro oo si joogto ah uga dhici jiray laakiin hadda ayaad moodaa in dhacdooyinkaasi amni darro ee Muqdisho ay ka nasatay dib ay uga soo cusboonaadeen sida xogo la helay ay muujinayaan sanadihii dhawaa magaalada Muqdisho waxa wax weyn iska bedelay qaraxyada iyo dilalka ay geysanayaan al-shabaab waxaana yaraaday falalka amni darro oo ay geystaan burcadda hase yeeshee toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa dib u soo cusboonaaday dhacdooyin amni darro oo ay geysanayaan koox burcad hubeysan ah waxaa qaarkoodna ay sameeyeen dilal toos ah oo loo geystay dad kala duwan allah u naxariistee Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar oo ahaa wiil dhalinyaro ah isla markaana dhowaan dhamaystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhowaan waa habeen uun ka hore marxuumka dilkiisa waxaa ka dambeeyay koox hubeysan oo damacsanaa in ay mooto nooca Ficonta la yiraahdo ay ka dhacaan kuwaas oo ugu dambeynna uu diiday inuu ku wareejiyo furihii mootada kadibna ay dileen waxaana la sheegay dad meesha ku sugnaa in goobtii dilku uu ka dhacay ay ahayd degmada Yaaqshid oo amni darrada ay kusoo korortay waayadii la soo dhaafay kaliya Cabduqaadir looma dilin dhaca gaadiidka hase yeeshee waxaa jiray dhowr qof oo kale oo lagu dilay magaalada Muqdisho maalmihii tagay kuwaas oo la damacsanaa in laga qaato gaadiid iyo agabyo kale oo ay wateen dhinaca gaadiidka ayaa waa ugu badan waxyaabaha la isku dilo iyadoo magaalada Muqdisho habeen iyo maalinna la diiwaan geliyay dhaca gaadiidka oo aad u soo farabatay sidoo kale xaafadaha ay dadweynuhu joogaan ama dadweynaha ay ku badan yihiin ayaa waxaa inta badan laga furtaa mobilada iyadoo dad ku labisan dariiska ciidanka dowladda ay arrintaasi geysanayaan mobilada iyo kombiyuutarada iyo agabyada kale ee la mid ah ayay kooxahan burcadda ah dadka ka dhacaan haddii qofku uu isku dhejiyana way dilaan ugu dambeyn sida warbaahintu dhacdooyin kala duwan oo ay eegtay ay dhacdaasi ka dhacday ama ay noocaas u dhacday wararkeena aad la socotaan oo idinkaga imaanaya barteena YouTube channelkan haddii aad ku cusubtaan subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad la socoto wararkeena oo aad had iyo jeer nagu heelan tahay oo aad la socoto wararkeena hase yeeshee qodobada ugu waaweyn waxaa kaloo kamid ah taliye Odowa ayaa isaguna waxa uu ka hadlay ciidamo gadood sameeyay oo magaalada Muqdisho ku banaan baxay isla markaana jidad xirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya guuto Odowa Yuusuf Raage ayaa ka hadlay gadoodkii shalay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ay ka sameeyeen ama ay sameeyeen kuwaas oo ka cabanaya mushaar la'aan taliye Odowa ayaa sheegay in ciidanka qalabka sida ay qaataan mushaarkoodii balse kuwa shalay banaanbaxa dhigay ay macquul tahay in ay ka mid yihiin ciidamada weli aan tirakoobka rasmiga ah marin isla markaana cilad farsamo ay ku timid aawadeed aan loo diiwaan gelin isagoo dhanka kalena sheegay in ay sii wadi doonaan waa sida uu hadalka u dhigay in la diiwaan geliyo ciidamadaasi isla markaana si ay mushaarkooda u helaan taliye Odowa ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee banaanbaxa sameeyay ay ka mid yihiin kuwa badan oo iyagu diiwaan gelinta weli ka dhiman qaar ka mid ah ciidamada waa warka laga soo xigtay sida uu ku yiri qaar ka mid ah ciidamada ayaa dhiman in la saxo guutada 8aad iyo 9aad ayaa sixitaan ku socdaa xilliga hadda lagu jiro ayuu yiri taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya wuxuu intaas ku daray in ciidamada ay mamnuuc ka tahay in ay gadood sameeyaan waa sida uu warka u dhigay ama uu yiri
hadalka taliyo Odawa ayaa imaanaya xilli shalay aagga madaxtooyada Soomaaliya ay xirteen ciidamo militari ah oo ka soo baxay sida ay sheegeen aagga difaaca ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. waxaana ay sheegeen in ay uga soo baxeen ama arrinta ay uga soo baxeen ay tahay kadib markii ay ogaadeen in xuquuqdoodii waa sida ay yiraahdeen meel cidlo ah lagu lunsado oo la cuno isla markaana sanad iyo muddo sanad iyo bilo ah aan la siin hantidii lacageed ee ay lahaayeen xaq ay u lahaayeen maadaama ay u shaqeeyeen qaranka waa sida ay warka u dhigeen. qaar ka mid ah ciidamada warbaahinta la hadlay xilligaasi ayaa waxa ay sheegeen in sanado ay muddo sanad ah ay ku jiraan difaaca dalka isla markaana baarlamaanka Soomaaliya ay ka maqleen in ciidamada mushaar la siiyay hase yeeshee iyagu durbadiyo marka hadalkaas ay maqleen ay isaga soo baxeen goobtii mushaarka ee lagu yiri waa lagu siiyay oo aysan wax mushaar ku qaadan. taliyaha xoogga dalka ayaa sheegay in aan loo dul qaadanaynin in shaqaaqo iyo qalalaase la sameeyo isla markaana isagoo ugu baaqay ciidamada in ay ka fogaadaan wax liddi ku ah dishibiliinka ciidanka ama waxa maaragtay afafka kale lagu yiraahdo ciidanku inay ilaaliyaan habdhaqanka ayuu warkaasi ku yiri. arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta sheego in dowladdiisu ay ku guuleysatay bixinta mushaarka ciidamada dowladda Soomaaliya. sidan oo kale gadoodii hore ayaa u dhacay oo ciidamada dowladda ay u sameeyeen iyadoo aysan jirin ilaa iyo haddana wax laga qabtay ciidamadaasi gadooday maadaama marka ay gadood ka sameeyaan kadib inta dib loogu laabto xarig iyo ciqaabo kale ay la kulmaan ciidamadu. isla Muqdisho haddii aan sii joogno wararka ugu waaweyn ee Muqdisho waxaa ka mid ah in arrinta doorashada Soomaaliya ay muran badan ka taagan tahay isla markaana muranka doorashadu uu noqday mid aad u xoog badan marka loo eego qaabka ay wax u socdaan weeyaane iyadoo ilaa iyo haddana aan la helin caddaymo rasmi ah oo muujinaya bal hadba sida ay wax yihiin ee ku aadan arrinka doorashada. madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa iyagu dhammaantood waxay sheegeen waa qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland madaxdooda waxay sheegeen in hoggaanka fila Soomaaliya iyo guud ahaanba xukuumaddu sida ay yiraahdeen ay ku fashilmeen in la qabto doorasho xor ah oo xalaal ah isla markaana aysan aqbali doonin in doorashada waqtigeeda lagu qabto waa sida ay yiraahdeen. arrintu marka halkaas joogto ayaa inaysan aqbali doonin in doorasho dib loo dhigo oo waqtigeeda doorashada dib looga dhigo waa sida ay yiraahdeen markaasi. tani waxa ay taageero u tahay hadalkaas marka la eego mucaaradka oo iyagu sheegay in doorashada la rabo in la hagardaameeyo oo aan waqtigeeda lagu qaban iyo xisbiyo kale oo iyagana u cartamaya in doorashada ay ka qayb galaan. inkastoo aan la ogeyn in doorasho qof iyo cod dalkan ka dhici karto oo marka la eego duruufaha ku gadaaman dowladnimada Soomaaliya aysan taasi dhici karin ayaa haddana waxaa muuqda in aysan suuragal ahayn waa sida ay wararku sheegayaan in xaaladdu noqoto mid la maaragtay dhinacyada la iska eego doorashada sida u dhacayso iyo in aan la isku fahmi karin. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwii hore xilalka uga soo qabtay oo ay ka mid yihiin madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa labadooda waxay sheegeen inaysan aqbali doonin doorashada dib loo dhigo waa sida ay yiraahdeen iyagoo dhanka kale tilmaamay in ay wadi doonaan wax kasta oo dadaal loogu muujinayo in doorasho ay dhacdo isla markaana ay diyaar u yihiin in xukuumadda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan toosinta wixii ay hore u soo qabteen waa doorasho. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay rabto in doorashada dib loo dhigo iyadoo beesha caalamkuna warkaas ay ka biyadiiday. xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in laga rabo madaxda Soomaalidu inay ku heshiiyaan doorashada dhacaysa iyo nooceeda isagoo maray gobolada Soomaaliya oo ku tagay Puntland iyo sidaas oo kale Jubbaland socdaalkaas markii uu ku tagay wuxuu ku sheegay in xaaladdu tahay mid aan la aqbali karin nooc ay wax u socdaan mararka qaar marka la eego weeyaan. warkaasi waxa uu yimid maamul goboleedka markii la soo tashaday in xaaladdu noqoto in doorashada iyo qaabka loo dhigayo in horta la iska fahmo marka koobaad. isfahamkaas ayaa doorashada maamul goboleedyadu sida u rabaan waxay tahay in doorashada la caddeeyo oo deegaan doorashada kasta xildhibaan kasta deegaan doorashadiisa la geeyo sida daraaddeed inaysan suuragal ba ahaynba in doorashadu iska noqoto mid xukuumadda una iska wadato. arrinta halkaas markii joogto Axmedoobe waxaa la kulmay dhowr mas'uul kala duwan oo arrimaha dibadda matala oo kala ah safiirka Qatar u jooga Soomaaliya Xasan Xamza wuxuu sheegay in ay kala hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin mashaariic ay ka fulinayaan Soomaaliya iyo sidaas oo kale
arrimo kale dhowr ah oo ay ka mid yihiin siday wax u socdaan arrimaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirkooda. qarax ayaa ka dhacay magaalada Buulebardi ee gobolka Hiiraan. qaraxaasi markuu dhacay waxaa lagu soo warramayaa in uu geystay saameyn aada u xooggan oo ay ka mid tahay in uu burburiyey airportkii. qaraxyo loo adeegsado hoobiyaal iyo kuwo kale ayaa waxay noqotay arrin aad maaragtay dadku ay la yaabeen maadaama Buulebardi ay tahay magaalo go'doonsan oo un airportka laga soo galo laakiin wax baabuur aysan ka shaqeynin ama jidad loola soo galo aysan lahayn. sawirro la helay ayaa muujinayay dhismayaashii garoonka diyaaradaha magaalada Buulebardi oo burburay isla markaana isagoo markiisii horeba aan caga badan hadda ku fadhin. faahfaahin dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan qarax khasaare geystay oo isxigxiga isla markaana aroortii hore ee saakaba ka dhacay magaalada Buulebardi ee bartamaha dalka Soomaaliya. qaraxyada oo ahaa nooca miinada isla markaana gaaray ilaa saddex maaragtay hoobiye iyo kuwo kale dhulka lagu aasay ayaa dhammaantood burburiyay garoonka taasoo dhulka la sintay dhismayaasha garoonka. ma jiro khasaare nafeed oo ka dhalatay qaraxyadaasi hase yeeshee burburka dhismayaasha gaaray ayaa naloo sheegay ilo deegaankana laga soo wariyey in airportkii dhammaantii uu burburay. ugu dambeyntiina qaramada midoobay waxay war ka soo saartay way soo dhaweysay madaxweyne Farmaajo inuu la kulmay maamul goboleedyada oo qaabka internetka uu kula kulmay. qoraal ka soo baxay ama uu kusoo daabacay bartiisa Twitterka qabiiltana qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan waxaa lagu yiri in hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ay kulmaan waxay taasi dhabaha u xaareysaa in la isfahmo oo doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo. waxaan rabaa inaan maaragtay markaasna aan wararka idinkugu soo gabagabeeyo dowladaha Masar iyo Turkiga ayaa qarka u saaran dagaal haddee fooda ay isdaraan. markaasi arrintaas faahfaahinteeda ayaan rabaa inaan idin guda galo. xaaladdu waxay tahay Turkiga ayaa kordhiyey faragelinta Liibiya bilihii u dambeeyey isagoo oo maraakiib u diray xeebaha diyaarado hubsaaran yihiinna ku geeyey calooshoodana waa calooshoodu shaqaystayaasha iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo halkaasi maaragtay raali noqda. Turkiga ayaa kordhiyey faragelinta Liibiya bilihii u dambeeyey isagoo maraakiib u diray xeebaha diyaarado hubka u geeya calooshoodu shaqaystayaal iyo oo sida warbaahintu qortay iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ayaa la geeyey dalka Liibiya. tani waxa ay taageero u tahay dowladda fadhigeedu yahay Tripoli oo dagaal sokeeye kula jirta ciidanka jooga bariga Liibiya. laakiin run ahaantii wuxuu qayb ahaan Turkigu wadaa dagaal aad u xooggan oo arrintaas ku saabsan. jawaab ahaan madaxweynaha Masar oo sabtidii safar ku tegay saldhigga militariga ee muujiyey in laga yaabo in Masar ay faragelin ku sameyso Liibiya. colaadda Liibiya waa mid adag balse aas-aaskeeda waa dagaal dahsoon. sidoo kale waxa cawaaqib xumo ay ku leedahay gobolka oo dhan oo awoodaha Turkiga iyo Masar, Imaaraadka iyo Russia ay dhammaantood ku sugan yihiin. Iiraan, Griiga, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa si dhow u daawanaya waxa ka socda Liibiya. Masar, Imaaraadka, Sacuudi Carabiya, Russia iyo laga yaabee Faransa iyo xitaa Griiga waxay taageereen Khalifa Haftar oo ah ninka maaragtay arrinka Liibiya dabka u shiday. waa hagaag guud ahaanna daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya waad kala socoteen barteena YouTube-ka channelkan haddaad ku cusubtaa subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay. waxaan kaaga mahad celinayna inaad nala socoto aad wararkeena mar kasta joogto hadda ula socoto. mahadsanid.